السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada YouTube channelkayga mar kale. waxaan rabaa insha Allah taala in aan maanta halkan kaga hadlo su'aal kamid ah su'aalaha abaayooyinka ee halkan igu soo weydiiyaan. aniga oo su'aashaas u arkay in ay muhiim tahay in aan maanta aan soo qaato. abaayo kamid ah abaayooyinka ayaa waxay tiri abaayo ka soo hadal dhiigga hooyada ee dila ama waxyeeleeya uurjiifta. sidaa daraadeed waxaan rabaa insha Allah taala inaan halkan ku isticmaalo waraaqo iyo maxaa la yiraahdaa qalin aan isleeyahay walaalaha si yar oo tartiib ah ayaad wax ku fahansiin doontaa. sideedaba bini aadamka dhiigoodu waa kala group. waxaa la sheegay oo la qiyaasay in uu u kala baxo 30 group, balse waxa ugu muhiimsan gruubyada la isku yiraahdo ABO system. ABO wuxuu leeyahay minus, wuxuu kale leeyahay plus. sidaa daraadeed sababta ay minus iyo plus u noqotay ayaan rabaa insha Allah inaan halkan ku qeexo iyo sababta loo baaray. marka waxaa loo baaray waagii hore dadku dhiiggu sideedaba waa la isu shubaa. waxaa dhici jirtay dhibaatooyin kasoo kala gaari jirtay dadka haddii dhiigyada micnihii aan islahayn inta la isku shubo qaarkood ay u dhiman jireen ama ay maaragtay dhibaato xun ay micnihii kala kulmi jireen. sidaa daraadeed micnihii dhiigga sideedaba waa la isku badbaadiyaa marka la isku shubaayo. qof ayaa dhiig u baahan oo lagu badbaadinayaa. marka waxaa la baaray oo la ogaaday 1900kii qarnigu markuu ahaa 1900 ayaa iyo micnihii agagaarkeeda ayaa la baaray gruubyada kala duwan ee dhiiggu uu ka kooban yahay. marka waxaan rabaa in aan idiin sheego sababta ay ku noqotay minus iyo plus. sideedaba waxaa la isku yiraahdaa iyaga rhesus factor. rhesus factor markii la soo gaabiyo waxaa loo yaqaanaa RH plus iyo RH minus ama RH negative ama RH positive. sababta ay positive iyo negative ama plus iyo minus ay ku noqotayna waxa weeye bini aadamka dhiigooda wuxuu leeyahay protein ayaa waxaa ku dahaaran dhiigga cas. sidaa daraadeed proteinkaas dadkoo dhan ma wada lahan. 85% adduunka dadka ku dhaqan groupkoodu waa groupka loo yaqaano micnihii pluska oo wuxuu leeyahay dhiigoodu protein, halka 15% uusan protein lahayn dhiigoodu. waana sababta keentay in la yiraahdo plus iyo minus ama maxaa la yiraahdaa positive iyo negative. hadba sida qofku uu rabo ayuu isticmaali karaa. marka waxaan rabaa insha Allah marka aan u soo dhaadhacayaa sababta ay hooyada dhiiggeedu uu u duqeeyo oo u dhaawici karo uurjiiftaas caloosha ku jirta. waxaan rabaa inaan saa idiin sheegay aan warqad iyo qalin aan wax idinkugu xariiqo. hooyadii ayaan soo qeexayaa. hooyadii markay saas ahayd gabadhii dhiiggeedu wuxuu ahaa nooca loo yaqaano minuska RH negative ama RH minus. RH waa taan soo gaabiyey oo micnihii aan ka dhigay waxaa la yiraahdaa rhesus factor. rhesus factorhaasna wuxuu sheegayaa inuu jirkeenu dhiiggiisu protein leeyahay iyo in kale. waana sababta keentay in la ogaado inuu yahay minus iyo plus. okay, hooyadii nooceedu wuxuu ahaa RH negative ama RH minus. uur bay yeelatay. gabadhii uur bay yeelatay. ilmihii koobaad bay qaaday. hooyadii uur bay yeelatay. ilmihii caloosha ku jiray xudun wuxuu leeyahay micnihii ebidaas oo uu ka helo micnihii wixii uu ku noolaan lahaa caloosha uu ku haysan lahaa.
okay ilmihii marka muxuu noqday hooyadii markay ahayd minus ilmihii wuxuu qaatay ilmihii wuxuu noqday plus macnaha hooyadu haday minus tahay ilmaha caloosheedu ku jirana uu plus yahay ayadoo lagu garanayo sababta micnihii maxaa keenaya in la kala garto inuu cunugiina uu micnihii dhiigga groupkiisa nooca uu yahay hooyadiina uu nooca uu yahay waxa keenayo hooyada markay uu isku ogaato ee ay tagto ay iska soo diiwaan geliso xarunta daryeelka hooyooyinka waxa laga qaadaa kaadida markii laga qaado uurka lagu sheego waxa kale oo laga qaadaa dhiigag ayaa laga qaadaa hooyada dhiigagaas wuxuu sheegayaa groupka ay ka tirsan tahay hooyada wuxuu kaloo sheegayaa groupka uu cunug yar ee caloosha ku jira uu ka tirsan yahay si aysan arrimahan oo kale u dhicin si aan hadhowto laba group oo kala duwan intay noqdo aysan dhibaato cunugii uusan caloosha ku qabsan cunugiina waxaa la ogaanayaa groupka uu ka tirsan yahay nooca groupka dhiiggiisa uu yahay ayaa la ogaanayaa ayadoo laga ogaanayo hooyadaas tijaabooyinkii laga qaaday sidaa darteed hadday hooyadu tahay nooca loo yaqaano RH negative taasoo noqon karto A minus B minus iyo O minus wixii minus ahaa ama AB minus way noqon kartaa wixii minus ahaa hadday hooyo ay ka tirsan tahay micnihii dhiigga groupkiisa uu yahay minus cunugiina uu noqdo plus ama positive markuu noqdo waxaa dhacayso haddii cunugaas wad ogtihiin cunugu xudunta wuxuu ka helaa hooyada nafaqadeeda iyo oksijiinteeda cunugu wuxuu leeyahay asaga laftigiisa dhiig buu leeyahay dhiiggaas oo micnihii uu baxayo soo noqonayo sida bini aadamkuba ay micnihii ay u socdaan okay waxaa dhacaysa marka cunugii ayaa dhiiggiisii wuxuu u gudbayaa hooyo dhiiggeedii hooyada dhiiggeedii ayuu taabanayaa hooyada dhiiggeedii markuu taabto jirkii ayaa hal mar wuxuu micnihii digtooni gelayo oo wuxuu arkayaa wax qalaad oo uusan aqoon u lahayn uusan arki jirinin in dhiiggiisa u soo gudbay sida cudurrada qaarkood cudurrada markay jirkeen u soo gudbiyaan jirkeeni hadiibana wuu dareemayaa okay wuxuu marka cunugii dhiiggiisii hooyadii dhiiggeedii taabtay ee ay sameeyeen xiriir sameeyeen ay istaabasho sameeyeen waxay hooyadii dhiiggeedii wuxuu samaynayaa wax loo yaqaano antibody ayuu dhisayaa hadiibana antibody ayaa samaysmaysa antibodygaas wuxuu u samaysmaa waa difaaca jirkeena wuu difaacayaa jirku wuxuu ka difaacayaa waxyaabahan qalaad ee uusan aqoonta u lahayn jiro iyo cudur iyo wax kasta oo dhib noo keeni kara ayuu ka difaacaa sidaa daraadeed hooyadii waxay samaynaysaa dhiiggeedii wuxuu samaynayaa antibodygaas wuxuu u gudbayaa xuduntii cunuga ayuu u gudbayaa wuu celinayaa isagoo iska difaacayo ayuu dirayaa markii uu diro waa marka cunuga dhib u imaanayo maxaa yeelay hooyadii iyo cunugii gruubyada dhiiggoodii wuu kala duwan yahay hooyo waxay ahayd minus cunugu wuxuu yahay plus markasta 15% adduun weynuhu waa minuska dhiig walbana ma qaataan ilaa minuskooda mooyee cunugii marka oo plus ahaa markii uu asagu hooyadii dhiiggeedii daandaansaday oo uu maaragtay xagga u gudbay hooyadii dhiiggeediina waxay samaysay oo dhistay isla markiiba ka hortag oo waxaan loo yaqaano antibody oo ah in uu maaragtay jirkiisa ka difaaco waxaan uusan aqoonin asagiina wuu diray oo wuu celiyay cunugii ayuu u gudbiyay maxaa ku imaanaya markii intaa dhacdo antibodygii hooyada markuu cunugii aado maxaa ku imaanaya waxaa ku imaanaya cunugii inay ku dhacdo dhiig yari anemia ayaa uurjiiftaas ku imaanaysa okay marka hooyada cunuga koobaad sida ee isagu sababay in antibody ay samaysmato badanaa dhib ma soo gaaro waxa dhibka uu soo gaaraa waa ilmaha asaga ku xigi doona ilmaha dambe ee dhalan doona asaga markuu dhashay ka bacdi ilmaha calool gali doona ayaa antibodygaas uu weerari doonaa antibodygani ilmaha koobaad ee sababay arrintan dhib micnihii asagu ma soo gaaro
wuxuu dhibka u gudbiyaa ilmaha soo socoto iyo wixii kasii dambeeyo. sidaa daraadeed markii la ogaaday in cunugii uu micnihii hooyadii antibody uu ku samaysmay dhiiggii oo xagga aaday darteed, markay hooyada ku jirto toddobaadka 8-29aad hooyada waxaa lagu durayaa irbad ah daawo ka hortag ah in antibody uu samaysmo. hooyadaasi waxaa lagu durayaa irbad ah antibody inuusan samaysmin ayaa irbad loogu durayaa markay ku jirto toddobaadka 8-29 meelahaas ayaa hooyada irbad la siinayaa oo ah ka hortag ah in antibody uu samaysmo. waxaa kaloo dhacaysa hooyadu markay dhasho ilmahan koobaad, hooyadu markay dhasho ayadana waxaa lagu duri doonaa uu cunuga banaanka yimaado, waxaa lagu durayaa irbad kaleeto oo ah in asagu micnihii antibodygaas uusan samaysmin, yacni uusan duqaynin ilmaha soo socoto. wiigii 29aad mid baa hooyadii lagu duray oo ah in antibodyga uusan samaysmin, yacni difaaca jirka in uusan uusan samaysmin ayaa hooyadii loogu duray. markuu cunuga dhasho irbad kale ayaa hooyadii lagu durayaa oo ah ilmaha soo socdo in uusan antibodygaasi waxyeelaynin ama uusan micnihii samaysmin oo uu meeshiisii ku jiro. sidaa daraadeed dhibka uu keenayo dhiiggii cunuga ee hooyadii u gudbay, hooyadiina isla markii antibody ay samaysay ee cunugii kale usoo celisay, wuxuu ilmahaasi u keeni karaa dhiig yaraan anemia. waa laga yaabaa dad badan oo naga mid ah anagoo waaweyn weli inaan anemia ka qaylinayno, waa laga yaabaa in micnihii arrintaas ay keentay, allahu aclam. balse haddaa ila fiirisiin, markay hooyadii minus wadatay ama ha wadato a minus ama ha wadato b minus ama ha wadato 0 ama o minus, markay hooyadii wadato amaba ay wadato a b minus, cunugiina uu wato wixii ahaa plus, ama ha noqoto a plus ama ha noqoto b plus ama ha noqoto 0 plus ama o plus ama ha noqoto a b plus. markuu wixii pluska ahaa noocuu groupku doono ha noqdo uu wato, hooyadiina ay groupkii ay doonto oo minus ay wadato, waa in la kala ilaaliyo in dhiigagoodu isu gudbaan oo halkaas uu ka samaysmo oo halkaas ka dhismo antibodygaas haddii uu u gudbo uurjiiftii wuxuu ku sababayaa oo u keenayaa in ilmahaasi ay ku dhacaan anemia, iyo anemiyadaasi kala xun haddii la doono mid khatara uu kusii dhaco. ilmaha koobaad ee calooshaasi ku jira halistooda ma badna, balse ilmaha soo socoto haddaanan lagu durin irbad ka hortag ah in antibody ay samaysmaan, ilmaha soo socoto ayuu daaragta u weerari doonaa oo uu halkaas uu ku waxyeelayn doonaa. waxaa jiro ilmo ayaga markay dhashaan dhiigga laga miiro, dhiiggii ayaa laga sifaynayaa, waxaa la siinayaa dhiig kaleeto oo markaas tii micnihii dhiig badbaadin karo oo markaas haddii la doono micnihii maadaama ilmahaasi uu waxyeelo kasoo gaari karo haddii saas lagu sii daayo. marka walaalahay qofkii raba dhakhtarkiisa ha kala hadlo, umulisadaada waad kala hadli kartaa, dhakhtarkaaga waad kala hadli kartaa. haddii aad tahay markii koobaad ee aad la kulmaysid, mar uurkii koobaad ee aad leedahay, dadka horey usoo dhalay oo horey ula kulmi jiray way yaqaanaan groupka ay ka tirsan yihiin, balse qofkii cusub ha soo ogaado dhiiggaas hooyada laga qaadayo ayaa lagu ogaan karaa ilmaha caloosha ku jira groupka uu ka tirsan yahay. marka waxaan rajaynayaa inaad ila fahmi doontiin ee aanan iska hadlinin. waad la xiriiri kartaa arrintan haddaad macluumaad dheeriya aad ka rabto, weydii umulisadaada iyo dhakhtarkaaga weydii. hadday shaki aad ka qabtid weydii groupka aad ka tirsan tahay. groupka haddaad dhiiggaaga groupkiisa hadduu yahay groupka loo yaqaano minuska, waa inaad taxadar samaysid oo aad tiraadid cunugayga, yacni waxaan rabaa in la ogaado waxa uu yahay. haddii laguu sheegana waa laguu sheegay, haddaan laguu sheegina waa inaad markaas soo ogaatid haddii uu cunugaagu plus noqdo adigoo minusa
saan kuu sheegayba antibodigaasi wuxuu hadhowto waxyeelaynayaa oo anemia ku ridayaa ilmahaaga caloosha ku jira ilmaha koobaad ayagu ma saameeyo balse ilmayaasha soo socoto ayuu hadhowto uu maaragtay saameyn doonaa xataa ilmahaasi markay dhalanayaan xataa ilmuhu way u gudbin karaan oo antibodigaas wuu samaysmi karaa markaas laakiin waa in toddobaadka 8-9-20 actually 9 waa in irbad markaas ka hortag ah in antibody uu samaysmo lagugu duro waxaadna dalbataa haddii aad tahay aan ka hadlayaa anigu macnihii minus hataa tahay waxaad dalbataa markaad dhashidna in lagugu duro waxaan idin leeyahay hadal badan haan ma buuxsho waxaan rajaynayaa in aan wax idin fahansiiyey ee aanan iska hadlin sidaa daraaddeed dhiiggan laftigeeda la cabirayo oo micnihii kala duwanaanshaha iyo dhiigga la isi siinayo ayagu yacni in la badbaadiyo oo labadii dhinacba lagu badbaadiyo ayaa micnihii la rabaa yacni qofka lagu shubi doono waa in qofkii markaas ah RH plus minus iyo plus buu qaadan karaa balse qofkii groupkiisu uu yahay minus waa in uu helaa keliya groupkaas ah minuska ama groupkaas keliya oo negativeka minus negative waa isku mid plus iyo positive waa isku mid marka sidaa daraaddeed waa in maaragtay aan saas aan u ogaano waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wixii aan xarxariiqayna waa kana haddaan idiin soo dhaweeyo